barasaabka gobolka Hawd Axmed Cigayara ayaa si rasmi xilka ugu kala wareejiyay maamulkii hore ee kastamka Balugwale gobolka Hawd Maxamed Jaamac Ali iyo maamulaha cusub ee ay wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland dhawaan soo magacowday kastamka Balugwale ee gobolka Hawd Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamuud. munaasabadan xil wareejinta ayaa ugu horeyn waxaa la ka jeediyay xubno ay kamid ahaayeen أحمد جحنوق وكسر وزارة هرمرنت مالية الصوماليلان طليها قيبته عيدنك بوليس قبل كهود علي إسماعيل فارح يقدوميا محكمة قبل دقمة قبل كهود شيخ عبد الله محمود عبدي إن خاصة أو في عنا وجو نكسن في الدخلية وزارة المالية أذولا شقيسان إلا صيلا يوم حنقول هذا ما شاء الله لا يتقلع عن يوحي حكم بريد كحكم أنت قبل كينا وحنصفي عن حوها هوشاسي idinku ma hadnaqana sida noola qabateen waxaan jecelahay sidii maxamed aad ula shaqeynaysan si ka sii fiican insha Allah inay hawshaasi noola qabsan doonto wixii hawlaha aad anaga nooga baahataan gacan baan idinka siin doonaa hadii Ilaahay ila wax weeyaan maxamed jaamac kulli hawl badan buu meesha ka soo galay waqtiyaal badan oo labada habeenimo saddex habeenimo iyo waqtiyaasha waliba marqam qaadka lama nuucay shidaalku soconayay hurdoon looma qornaanay isaga toonna وحوي عبد الرحمن سيدا يسكن وعنهم بنولا شقيننا وحنا نروح بالشودي وحنا محمد جامع سب في عم بنصور الشقيني إن شاء الله إما كانوا نكون سيد عيننا عبد الرحمن وحنا ما أنت وحيا كنا لنا دباحة وحنا جودي بيا وحبين تا عرس يعني الدولة كبوا دويا وحنا جود عيننا الله قول بيريه حلو دبا قوي أمين من قوي وآمنة يلو دبا أقول إن الله قوة أستر الله قوة أستر waxayaguna halkaasi ka hadlay maamulkii hore ee kastamka Balugwale Maxamed Jaamac Ali iyo maamulaha cusub ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland soo magacowday kastamka magaalada Balugwale ee gobolka Hawd Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamuud bedelku waxa weeye wasuunaha dawladnimada sida weednaanu ka wasaaradahan bedelku waxa weeye wax caadi ah oo shaqadayada kamid ah anaga iyo Bliss مددي هل وقتنا إن بدل كانوا كلا دعوة وحن كسر دويني يا مانتا بدل كا سيدي أنا لقوا بدل محمد قري يكسر دويه هل كان مامور عبد الرحمن إبراهيم شامع محمود وحلا كسر دوو قبل كا كسم كبر قبل كهود مسؤولين تا يولمان شغالان waxa leeyahay sidii ay la shaqeyseen si la mid ah ama ka wanaagsan in ay soo dhaweysaan oo la shaqeysaan baan ka rajeynaya xilka maanta la dhiibina Ilaahay waxaan ka baryaa inuu Ilaahay waasturo inuu Ilaahay gobolka ka dhigo gobolkii ummadda Soomaaliland ku digi lahayd wixii ka soo baxa gudoomiye oo ku maadsantay shaqada weyn aan la qabtay mar walba waxaan hubnaa inaad garab taagnaan doonto assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Hawd Axmed Cigayare وسنة دولة ديمو إن مربلس بدلو وأنا كانوا ما دعني وسير كسر المالية ده يو أقاسمها جود يهول وذين هذا كلا دوان يلا ما هو سار المالية دولا هذا هاي سيداي وجوه اللي هين هذه همين إن قارن كوش غيان ودخلوا روريان هذه أدبرنتي وجم هذا علنيا وحن ودعينا يا محمد جامع ورنتي معمولي كستان كهورة سيفي عني تيان شوقني أنا وذا الشقيني هبيني يا معلم مدالها محمد جامع وحن كلنا هاي دويات قبل كوك شيء يقارن كادو كشينا وكوك سوي هاي هذا أنا ملك كفي عن وذكرن كوش غيسان الله كأكبرين كوكيو عبد الرحمن maamulaha kastamka cusubna waa soo dhaweynayna Abdiraxmaan waxaanu kugu bishaareynayna ama ku ballan qaadaynaa in aan kula shaqeyno sidii Maxamed Jaamac aan ula shaqeyn jiray iyo si ka dadaal badanba gobolku wuxuu ku yaalaa xad wad ka waraysaa xadka gobolku uu dheeraran yahay dakhliga waxna gaadha lagu raadiyaa waxna iyaga yimaada qorshahaaga iyo sida dakhli soo saar lahayd shaqadaada weeyaan kulli lagu maday anagu waxaan wixii hawla ee anaga nooga baahatid hadaan nahay Bliski iyo hadaan nahay maamulka gobolka diyaar baan kula nahay hadi aad baa mahadsantiin Maxamed Jaciir oo Axmed TV qaranka Soomaaliland
magaalada Balligubadle